doorashada way dhacaysaa way qabsoonaysaa doorashaa la gelayaa warna taasi ma lahee nin war waayey baa war ka dhiganayee doorasha waa diyaara nin walba waxaa burhaantaada le oo diyaara kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka rasmi radio qodobada aan idinku madaxweynaha sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacayso galmudug dowladda federaalka Soomaaliyana waxa ay ku dhawaaqday in maalinta Axadda ee taariikhdu ay ku beegan tahay 18 bisha 8aad 2024 ay bilaabmayso in si toos ah loo jari doono cashuurta iibka taas oo laga goosan doono aaladda lacagaha lagu isticmaalo aaladda EVC-da dahabka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ayaa shaaciyay inuu qabanayo doorasho qof iyo cod ah waxa uu sheegay in shacabka Galmudug ay xaq u leeyihiin inay soo doortaan madaxdooda isaga oo ku dooday in Galmudug ay ka soo gudubtay xilligii awoodda wax lagu raadin jiray wuxuuna maamulkiisa uu sheegay inuu qabanayo doorasho dadweyne ayna shacabka soo dooran doonaan madaxweynaha Galmudug ilaa xubnaha ka hooseeya Qoorqoor ayaa raadinaya wado uu mar kale uu ku soo laabto oo kursiga uu ku soo noqdo iyadoo hadalkan uu ka sheegay munaasabadda xuska sanad guurada 18aad ee dowlad goboleedka Galmudug isagoo oo weerarna ku qaaday dhinaca siyaasiyiinta mucaaradka ee ay ishayaan dagaalka labada dhinac ayaa salka ku haya isriixriixa doorashada ee ku soo fool Galmudug iyadoo isbiirsadeen laba arrimood wuxuu Qoorqoor uu sheegay in aan la aqbali doonin in ay hub ay la soo galaan siyaasiyiinta gudaha Galmudug wuxuuna sheegay inay sameynayaan kicin bulsho oo ay maamulka ku kicinayaan dadka rayidka dhawaaqa ka soo yeeray madaxweyne Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ka qayb ahaa qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee doorashooyinka dalka Xasan Sheekh ayaa ku adkeysanaya in dalka uu ka hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah iyadoo oo golaha wasiirada ay dhawaan ansixiyeen sharciga doorashooyinka iyo kan xisbiyada mucaaradka ayaa si weyn uga soo horjeeda qabashada doorasho muddo kororsi siinaysa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyagoo oo laftigoodu ku hawlan sidii ay mar kale u boobi lahaayeen doorashooyinka Galmudug si ay ugu suura gashana ka shaqeynaya anagu waxaan leenahay doorashadii Cabdi Axmed uu sheegay annagu doorashan diyaarno kambeynka iyo waqtigiisa waxaan leenahay xilliga doorashada hal laga dhigto xilli aan doorasho ahayn dadka yaan la wareerin wax qalad ayaan la dhex wareegin maanta oo dhan waxyaabo aan waxba ka soo baxayn yaan la samaynin annagu dadka baagamuddada ah ee aan wax waajibi saarayn ee inay wax qalloociyaan kaliya shaqadooda ay tahay annagu dadkaas dee lama socon karno annagu waajib baana saaran dalkaan u shaqaynaa dal baan nagala rabaa inaan hogaamino hagno annaga kuwaas dee isku shaqa ma mihiine kuwaas waxay ku howlan yihiin maantoodan waxaan sax ahayn marka waxaan leenahay Cabdi Axmedow doorashadii iyadoo Soomaaliya heshiis ku tahay oo doorasho midaysan tahay baan Soomaali qabnaa cidii hadda naga sugaysa in annagu Soomaali isla qaranayno ama waxay Soomaali doorasho ay qabsan karto inaan dhinac uga leexnana adaa soo arush doorashada way dhacaysaa way qabsoonaysaa doorashaa la gelayaa warna taasi ma lahee nin war waayey baa war ka dhiganayee doorasha waa diyaara nin walba waxaa burhaantaada le oo diyaara intii ka horeysana sidaan sheegay qojoqojaynta iyo reer isku shukaaminta iyo fidna abuurka iyo xaalad abuurka laga dagacrada oo nin wuxuu sheegay aqoon baa waxaa sameeyee nin wuxuu sheegay yaqaanaa garoonka waddan haddii la yidhaahdo waa mahadsantihiin dadka reer Galmudug mar kale waxaan leeyahay meelaad joogtaanba hambalyo quruxda iyo damaashaadka iyo runtii sidaad u muuqateen aad iyo aad baan raali uga nahay haddee Galmudugtiina idiin qurxoon saasaad u qurxoontihiin reer Galmudug Soomaalida la dabaaldegaysa oo la damaashaadana waa mahad celinaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin mar kale shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya
sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Beko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhammaystiran 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde ee Muqdisho, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah ee ku yaala magaalada. Wehelka dhiga Beko oo mar walba isticmaal. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in maalinta Axadda oo taariikhdu ay ku beegan tahay 18 bisha 8aad 2024 ay bilaabmayso in dowladda ay si toos ah u jari doonto cashuurta iibka. Cashuurta oo dhan 5% ayay sheegtay in dowladdu ay kala baxayso koontooyinka ganacsiga isla markaana lacagtan lagu dalacayo dadka muwaadiniinta. Wasaaradda Maaliyadda ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in lacagaha cashuurta ee sida tooska ah loo jarayo ay ku dhacayso khasnadda dhexe ee dowladda. maalmo ka hor ayay ahayd markii ay ganacsatada ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo wasiirka maaliyadda ay ku kala kaceen kulan looga hadlayay jarista canshuurta iibka. kulankaasi oo looga hadlayay cabashooyin ay qabaan ganacsatada oo ay ugu dambeysay canshuurta iibka ee 5% ah. wasiirka maaliyadda ayaa ku gacan sayray in dib loo dhigo waqtiga la qorsheeyay bilaabidda canshuurta iibka ee laga jarayo iib kasta oo laga sameeyo aaladaha EVC-da, dahabka iyo waliba ababka ay isticmaalaan bangiyada. Si kastaba ha ahaatee talaabadan ayaa imaanaysa xilli ay wali dowladda iyo ganacsatada ay isku fahmi laayeen canshuurta la jarayo oo loo marayo koontooyinka ganacsiga, taas oo dhinaca kalena culays hor leh ku noqonaysa bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo deegaanada kaleba. warkii aad kala socoteen Rasmi Radio waa naga intaan ku kulmayno warkan la mid ah fadlan daawade haddaad ku cusub tahay barahayaga bulshada nagu soo biir oo channelka subscribe noo saar, Facebook-gana follow dheh.